degdega waxaa hadda iscasilay madaxweynaha deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Iilay oo loo yaqaan Cabdi Iilay ayaa hadda iscasilay iyadoo oo wararku ay sheegayaan inuu iskaga baxayo ama uu qorsheynayo inuu dalka iskaga baxo waxa kale oo la soo sheegayaa in iscasilaadiisa ay ka dambeysay cadaadis fara badan oo kaga yimid dhinaca dawladda sare federaalka iyo isbedelka muuqda ee hadda la soo sheegayo inuu isku casilay sidaa darteed waxa imika la sheegaya Cabdi Iilay oo godobo badan galay oo dad badan xabsi u taxaabay hooyooyin badan goblan ka dhigay dad badan si aad ogtihiin ku guray jeel ogaadeen deegaamo badan xasuuqay ummado badan cagta mariyay ayaa waxa uu waqtigu keenay inuu maanta iscasilo iyadoo oo duufaanta ka socota bariga Afrika ay ku kaliftay inuu iscasilo barrisada ay noqon ma ogid waxa dhacday in imika Cabdi Iilay la sheegayo inuu jigjigu ku sugan yahay hadda laakiin waxa la sheegayaa inuu u baxayo dalka Imaaraadka Carabta oo uga sii baxayo dalalka Yurubta oo weydiisanaya magangeliyo siyaasadeed waxa kale oo la sheegayaa in ay dawladda federaalka Itoobiya ay sheegtay in aan qof dambe laga aargoosan doonin oo siyaasaddu hadda bilow tahay oo ay sameynayaan siyaasad furfuran awal hore ay xoog wax ku dooni jireen laakiin hadda wixii ka dambeeya ay wax ku doonayaan nabad iyo wada shaqayn amni ay kula noolaadaan dalalka deriska sidaa darteed Itoobiya waxay ballan ku qaaday in aan mar dambe cid dambe aan la dagaali doonin sidaa darteed ay nabad wax ku raadinayaan dalka gudihiisa cadaalad ka sameynayaan waxa kale oo ay sheegeen in dadkii hore ee dambiyada loo haystay inaan maxkamad la hor keeni doonin dawladuna ay amnigooda damaanad qaadi doonto cid kasta oo ay dawladdu xilka ka qaado siyaasaduna ay bilow tahay wixii war intaa dheer waan idin soo socodsiin doonaa